Ma ogtahay Mongolia in uu waslada hilibka ay ka jaban tahay koob shaaha oo la cabo baraada. Dadka reer Mongolia waa dad aad u hilib jecel sida Soomaalida. Sidoo kale waa dad aad u tiro yar waxa lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan. Waxay sidoo kale haystaan 185 milyan oo xoolo ah. Sidoo kale wuxuu Ilaahay ugu deeqay dhul barwaaqo oo aad u ballaaran. Dhulkani haddaba ma aha Sahara ee dhammaantii waa dhul barwaaqo ah oo roobku uu iyo jiilaal u hayo. Dadka reer Mongolia hilibka waxa uma cunaan marmar faakahaysi ee waa quutal daruurigooda ay ku nool yihiin si ay ugu shaqaystaan. Reer Mongolia hilibka waxay u kala qaybiyaan maraq bay kala baxaan oo way kariyaan, mar way dubtaan oo way hogeeyaan, marba nooc ayay u sameeyaan. Haddaba Soomaalidu way aad bay u hilib jeceshahay sida dadka reer Mongolia. Hilibkuna waqtigan xaadirka ah waa ku qaali oo xoolaha ka sii yaraanaya. Haddaba haddii Soomaalidu waa tan tahriibaysa ay doonayso inay u tahriibto waddanka Mongolia halkan ay iska soo xaadiriyaan annaga u haynaa visa free ay Mongolia ku tagaan si hilibka ugu soo dhigto.